dowladdu go'aan ku qaadatay in lacagta dekeda lagu qaadi jiray boqolkiiba 10 shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birita ah sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridaayay waxa kamid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektarooniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ah in $1 wixii ka yar aan lagu gadi jirin waxa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisu uu soo noqdo iyo baahidiisii sida la aliyeed dowladdu iyadana waxay qaadatay boqolkiiba $10 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektarooniga oo $10 iyo wixii ka sareeya kii lagu adeegan karo shirkadaha ka shaqeeya iyagoo ku mahadsan siday dowladda ula shaqeeyeen naga aqbaleen go'aankii hore oo $1 ahaa naga aqbaleen inay furaan qayb elektarooniga oo shilinka Soomaaliga ah horena ay u furtay shirkadda Golis haddana ay maanta ay bilowday shirkadda Somtel anagoo uga mahad celinayna fahamkaas iyo adeegidaas bulshada haddana marka aan ururinay xogaha iyo baahiyaha iyo dadka u dhuun daloola sababta keenaysa inuu shilinku qiimihiisa hoos u sii dhaco inay qayb ka mid tahay iyadana waxaan qaadanay go'aanka ah in $10 iyo wixii ka hooseeya aanan lagu adeegsan karin arrimaha la yiraahdo isku dirka lacagaha dadka marka waxaan rajaynayaa inay go'aanadaasi ay noqdaan kuwa dhaqan gala oo bulshada Soomaaliyeed ay u hoggaansamaan labada qodob ugu muhiimsan waxa weeye in boqolkiiba 10 dekada lagu qaado in $10 iyo wixii ka yar $10 wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektarooniga marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan ha ahaato xawaaladaha ha ahaato dadka sariflayaasha iyo dawladda qaybaheeda kaleeto laakiin hadalkan waxa weeye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay soo fulayana waxa jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbedelka ku imaanay arrimahaas waxaase uga baxaya hadalkayga in dadka ku dhex dhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeena waan uga mahad celinaynaa inay cabtaan waan uga mahad celinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan waan uga mahad celinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dawladda la soo xiriiraan shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan aaraadooda noo dhiibtaan taladooda ay nagu biiriyaan go'aankana aan ku qaadano macluumaadka aan ururinay waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa anagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid haddii wixii aan qaadano ay tala ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dawladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas khuseeya ugu soo mareen waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqeynaysan inay iska qabtaan Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udub dhaxaad u ah dhismaha dawladda Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka badiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta ay joogto ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ay soo dhaweynayaan inay si fiican u soo dhaweeyaan sidoo kalena cidii ku soo dhex dhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba in intay soo gaarin hay'adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan aad baa u mahadsantiin